Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Sajid Javid ayaa waxaa soo food saartay dhaliil la xiriirta geerida wiil yar oo ay dhashay Shamima Begum oo ku dhintay xero qaxoonti oo ku taala dalka Suuriya. Mrs. Begum ayaa iyadoo 15 jir ku biirtay kooxda la baxday dowladda Islaamka ee IS. Mr. Javid ayaa dhalashadeedii kala laabtay kadib markii gabadhaasi 12 jirka ahi ay codsatay in ay ku soo laabato dalka Britain. qof saaxiib la ahaa qoyska gabadhaasi ayaa sheegay in xukuumadda boqortooyada Ingiriisku ay ku guuldareysatay inay badbaadiso nolosha cunuga, iyadoo xisbiga shaqaalaha ee dalkaasina uu sheegay in geeridiisu ay ahayd natiijo ka dhalatay go'aankaasi qalafsan oo bini'aadanimada ka baxsan oo ay qaaday xukuumadda dalka Britain. Afhayeen u hadlay xukuumadda boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegay in geerida cunugaasi ay ahayd mid musiibo ah. Afhayeenka ayaa sheegay in xukuumaddu ay si joogto ah ugala talisay inaanay u socdaalin dalka Suuriya, ayna sii wadi doonto inta karaankeeda inay ka horjoogsato dadkaasi inay ku biiraan kooxaha argagixisada iyo inaanay u safrin goobaha ay khilaafku ka taagan yihiin. Mrs. Begum oo boqortooyada Ingiriiska ka tagtay sanadkii 2015 iyada oo ay weheliyeen laba ka mid ah saaxiibadeeda iskuulka ayaa bartamihii bishii hore ee February waxaa arkay wariye u shaqeeya wargeyska The Times iyada oo ku sugan xero qaxoonti oo ku taala dalka Suuriya. waxa ay sheegtay inay la nooleyd saygeeda oo u dhashay dalka Holland isla markaana u dagaalama kooxda IS. waxaana haweeneydaasi hore uga geeriyooday 2 carruur iyada oo aanaysay geerida carruurtaasi xaalado caafimaad xumo. Mrs. Begum oo leh uur 9 bilood ayaa wargeyska u sheegtay inaanay ka qowmamaynayn ka mid noqoshadii ururka IS, hase ahaatee ay dareemayso in khilaafadaasi uu gabalkeedu dhacay. wariye ku sugan xerada qaxoontiga ayaa waxa uu dhowaan sheegay in wiilkii gabadhaasi ay dhashay uu u geeriyooday caabuq dhanka sanbabada sida lagu xusay waraaqihiisii caafimaadka. waxa uu jiray wax ka yar muddo 3 toddobaad ah. xildhibaanka muxaafidka isla markaana ahaa wasiirkii hore ee cadaaladda oo lagu magacaabo Philip Lee ayaa xukuumadda ugu baaqay inay muujiso mas'uuliyaddeeda iyo inay ka xun tahay masiibadaasi. waxa uu sheegay in marka laga yimaado fikradaheeda xagjirka ah ay dhanka kale khalad ahayd in Mrs. Begum lagala laabto dhalashada isla markaasna loo diido inay ku soo laabato dalka boqortooyada Ingiriiska. arrintaasina ay ahayd buu yiri mid siyaasadeed ee aysan ahayn mid ku dhisan mabda'a la yaqaan. wariye ku sugan xeradaasi qaxoontiga ayaa waxa uu sheegay in xaaladda nololeed ee xeradaasi qaxoontiga ay ahayd mid laga naxo oo ay gabaabsi ku ahaayeen cuntada, bustayaasha iyo weliba teendhooyinka intaba. muddo 3 bilood gudaheed in ka badan 100 qof ayaa ku dhintay xeradaasi isla markii ay yimaadeen. dadka dhimanaya 3 meelood ayaa waxaa lagu sheegay inay da'doodu ka hooseyso muddo 5 sano ah. kadib markii Mrs. Begum laga xayuubiyay dhalashadii qoyskeeda ayaa warqad u diray wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain, waxaana ay ku sheegeen sida ay u diidan yihiin go'aankaasi. waxaana ay ka codsadeen inuu gacan ka siiyo sidii ay cunugooda u keeni lahaayeen dalka boqortooyada Ingiriiska. cunugeeda oo dhashay ka hor intii aan wasaaradda arrimaha guduhu aanay kala laaban dhalashada ayaa waxaa weli loo tixgelinayaa inuu yahay nin u dhashay waddankaasi Britain. siihayaha wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain Diani Abbott ayaa lagu dhaliilay tallaabooyinka ay qaaday wasaaraddaasi arrimaha guduhu. Saciid Axmed Tamrayse, wararka telefishanka caalamiga ah Star.